wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa booqasho 2 maalmood ah ku tagay dalka Turkiga isagoo halkaasi wada hadallo muhiim ah oo ku saabsan sidii loo joojin lahaa dhoofinta badarka ee Ukraine kula yeelanaya mas'uuliyiin ka tirsan Ankara waxaana la rumaysan yahay in raashinka dhoofinta ee dalka Ukraine uu saameyn ku yeeshay ama uu joojiyayba weerarka Moscow ay February 24keeda ku qaaday dalka Ukraine diyaaradii sidii Lavrov ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Turkiga ee Ankara sidoo arkay sawir qaade ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP waa safarkii labaad ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ku tagayo dalka Turkiga kadib markii uu sidaan oo kale booqasho ugu tagay dalkaas bishii March aynu ka soo gudubnay 10keeda waxaana uu magaalada Antalya kula kulmay dhigiisa dalka Turkiga iyo dhigiisa dalka Ukraine oo wada hadallo muhiim ah ay kula yeesheen markaas oo Ankara ay dadaalo ku bixinaysay sidii ay door nabadeyn ah uga ciyaari lahayd daminta dabka ka dhaxshidan Kiev iyo sidoo kale Moscow codsi ka yimid qaramada midoobay ayaa Turkiga wuxuu u fidiyay adeegyadiisa si uu kolonyada badda uga soo raro dekedaha Ukraine inkastoo ay jiraan miinooyin qaar ka mid ah laga helay meel u dhow xeebaha Turkiga Lavrov wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Ruushka wafdigiisa Turkiga waxaa ka mid ah saraakiil culculus oo ka tirsan militariga Russia xudunta gorgortanka ayaa ah furitaanka marin amni ah oo lagu soo raro badarka Ukraine badarka iyo sarreenka gaar ahaan oo ku xayrin dekedaha dalka uu dagaalku halakeeyay wasiirka beeraha ee Turkiga ayaa ka dhawaajiyay in Ankara iyo Kiev ay gaareen heshiis ku saabsan iibsashada badarka 25% ka hooseysa qiimaha suuqa sida ay sheegtay warbaahinta gudaha ee Turkiga laakiin iyaga Ukraine waxay qabaan laba daran mid dooro oo ku saabsan amniga iyo dhoofinta waxay rabaan inaan halkan ka noqono garqaade Turki ahaan wada hadallada ayaa sii socda iyadoo ay garwadeyn ka tahay qaramada midoobe ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha Turkiga isagoo qadka telefoonka kula xiriiray toddobaadkii hore madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu u sheegay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan in Moscow ay diyaar u tahay inay kala shaqeyso Ankara sidii loo xoreyn lahaa maraakiibta badda ee go'doomisay intii uu socday dagaalka duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo cunaqabataynta reer galbeedka ayaa hakad galiyay sahaydii qamadiga iyo badeecadaha kale ee labada dal taasoo sii kordhisay walaaca laga qabo khatarta gabaabsiga iyo gaajada ka jirta dunida Ruushka iyo Ukraine waxay soo saaraan 30% sahayda sarreenka ee adduunka tobaneeyo maraakiibta konteenarada ayaa ku xaniban dekedaha Ukraine oo ay ku hareereysan yihiin ciidamada Ruushka kuwaas oo ku ceejinaya dhoofinta qamadiga saliidda gabaldayaha iyo cuntooyinka kale iyo sidoo kale bacriminta dalagyada caqabada kale ee ugu xoogan ee dhoofinta raashinka saameynta muuqata ku yeelatayna waxaa ka mid ah isticmaalka badda madow taasi oo marar badan ay ka dhaceen qaraxyo culculus oo la aaminsan yahay inay dhigeen ciidamada dalalka Ruushka Ukraine oo haatan duulaan culasi uu dabcan ka dhex socdo dunidu wali waxa ay ku dadaalaysaa xal u muuqda mid labada dhinacba u horseedaya guul midaysan Moscow taasi uguma jirto oo docda kale waxay ka fikiraysaa qaadashada dadaalla u horseedi karaya gaaritaanka yoolasheeda fogfog ee ka dambeeya danaha duulaan weerar ee Ukraine